waxaan maraynaa gabdhaha xijaabkii iyo asturnaantii ceeb iyo reebadiinimo looga dhigo. gabadhan oo lagu magacaabo Qatra Qiyaas oo TikTok gacan ka ah ayaa waxay ka qayb gashay xaflad, waxayna xafladii u soo qaadatay dhar xijaaban oo ay ku soo labisatay. gabdhaha kalena waxay u labisnaayeen qaab guud ahaanba ka fog xijaabka oo intooda badan waa is soo qaawiyeen, waxayna soo xirteen dhar jirkooda muujinaya, badankooduna timaha ay soo banaysteen. laakiin waxay ishu qabatay gabadhan lagu magacaabo Qatra Qiyaas oo waxa la yiri waxay xijaabka u soo xiratay attention iyo in la buunbuuniyo oo la dhaho gabadhani waa gabar fiican, xijaabkeeda kama tanaasusho iyo waxyaabo noocaas ah. waxaana laga aamusay ama si caadi ah looga falceliyay kuwii is soo qaawiyay ama dharka ku dhagan soo qaatay. Qatra Qiyaasna waxa loo muujiyay ama la dareensiiyay inay xafladda u soo xiratay dhar qaldan oo sidii loo baahnaa aysan u soo labisan, ama xijaabkan iyo dharka asturan oo ay soo xiratayba waxa la yiri waxa uu ka yahay istustus in dadka iska gado. sida looga bartay gabadhan ama ay caanka ku tahayba waa gabar mar walba aan dhigin xijaabkeeda oo dhammaan muuqaaladii ay hore u soo duubi jirtay xafladda ka horba waxay soo duubi jirtay ama ay soo dhigi jirtay ayada oo xijaaban. waxaana boqolkiiba boqol ku amaanaya Qatra Qiyaas dhaqankeeda wanaagsan iyo in xafladaasi ay ku timid ayadoo caadi u xijaaban. markastana waxa ay ka duwan tahay oo ay ka qaalisan tahay jirka raqiista ah ee la soo bandhigayo ee qof walba uu daawanayo. qofka waqti xaadirkan in la isqaawiyo u haysta horumar iyo albaxnimo isaga ayaa badow ah. haddii aan dhanka kale u dhigo oo aan si kale uga hadalnana, quruxdii la sheegi jiray ee dumarka oo dhanba waxay ku soo hartay waqti xaadirkan oo ay ku jirtaa xijaabka. dugsiga Daarusalaam Quraan Online duruusta kala duwan ee lagu baranayo waxaa ka mid ah barashada iyo xifdinta Quraanka Kariimka ah muddo kooban. waxaana lagu barayaa hikaada, barashada ducooyinka iyo barashada asaasiyaadka diinteena. waxaana dugsiga barayaalka ah macallimiin khibrad iyo waayo aragnimo u leh habka wax u dhigista iyo tababarida carruurta. waxaanad kala xiriiri kartaa lambarada shaashada kaaga muuqda. nin kasta oo doonaya sharaf iyo karaamo iyo farxad inuu ku noolaadana waxa uu ka dambaynayaa gabadha xijaaban oo jirkeeda asturta, waxaana ka cararayaa midda qaawan ee dharka soo dhigata ee jirkeeda soo muujisa. sidaa darteed waxaan leeyahay gabar kasta oo xijaaban oo diiday in jirkeeda ay qaawiso, waxaan leeyahay weligaa ha ka tanaasulid inaad xijaabkaaga wadato, sidaada u xirnaaw, ku dhaganaaw. isaga ayaa sharaf iyo karaamo ku leedahay, isaga ayaa qiimad ku leedahay, isaga ayaadna ku qurux badan tahay. aakhiradaada iyo adduunkaaga isaga ayaa ku badbaadinaya oo marqaati ku noqonaya. waad mahadsantihiin saaxiibayaal. gabadhaana hala dhiirigeliyo, aadna ha loo garab istaago. waxaan idin leeyahay soo dhawaada. والسلام عليكم. haddii aad u baahan tahay in lagaaga soo cumreeyo waalidiintaada, waxaa jira walaalo Soomaaliyeed oo ku sugan dhulka barakaysan, kuwaas oo waalidkaaga dhintay ama dhulyaalka ah uga soo cumreyn doonaan lacag ka yar $400. waxayna walaaluhu ku soo diri doonaan ilaa 3 muuqaal oo ku saabsan sidii waalidkaaga looga soo cumreeyay. haddaba haddii aad u baahan tahay waxaad kala xiriiri kartaa lambarkan shaashada kaaga muuqda. mahadsanid.